aad ayaan runtii uga mahad celinayaa in allaala iyo inta soo abaabushay xafladan quruxda badan taliyaasha noocyada ciidamada badda iyo muxuu ahaa ii sheegay dhulka ay mas'uuliyadda kula kala wareegayaan inaan maanta halkan isugu nimaado ilaahay baa mahad iska leh waxaan rajaynayaa runtii mas'uuliyadda hortaalla runtii ah mid aad u adag dareemi karna dhamaanteen waqti badan aan ku soo bixinay haddana aan ku bixi doono waqti badanna inay ilaahay u fududay doono runtii waa mid la isugu duceeyo ma ahan mid la isugu hambalyeeyo waa mas'uuliyad aad u adag waa mas'uuliyad runtii qaranka Soomaaliyeed uu naga sugaayo waa mas'uuliyad ay naga sugayaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa mas'uuliyad ay runtii ay waajib muqaddis ay nagu tahay in aan sida ay tahay anuga soo baxno inta kadib waxaan rabaa runtii inaan mahad celiyo Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir taliyihii ciidanka dhulka haddana taliyaha ciidanka badda waqtigii koobnaa runtii uu ka soo shaqeeyay taliska ciidanka dhulka oo runtii aan dhihi karno wuxuu uga shaqeeyay si howlkarnimo ah si firfircooni leh si muxuu ahaa ii sheegay mas'uuliyad ah ayuu u soo gudtay waajibaadkii shaqo una soo wada shaqeeyay runtii waxaan rabaa inaan xuso waqtigii taliyaha ciidanka dhulka Generaal Cabdixamiid uu noqonayay anigana aan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed noqonayay runtii waqti kooban ayaan hayay taliska ciidanka dhulka waqtigaas taliska ciidanka dhulka ma aysan suurto gelin in aan helno gacan nagula siiyo inaan dhisno taliska ciidanka dhulka laakiin ilaahay mahadiis ilaahay wuxuu suurto geliyay waqtiga oo isugu joogay waqti badanna aan kula bixinay juhdina aan kula bixinay taliska ciidanka dhulku inuu dhisayo waaxihiisa inay dhismaan inay noqdaan waax shaqeeya oo guud ahaan qaybihii ciidanku ay ka koobnaayeen wax kastoo ka mid ah inay shaqeyso taas ayaa noo suurta gashay ilaahay yaabno hadda iska leh sidoo kale Generaal Cabbaas runtii asigana aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa waqtiga uu joogay taliska ciidanka badda runtii waxaan dhihi karaa isbedel uu ka sameeyay laftarkeeda isbedel ayuu ka sameeyay waad arki doontaan waxaan aaminsanahay runtii meel maantay walaalkay Generaal Cabdixamiid uu ka sii qaba kariyo oo uu raaci kariyo oo fahmi kariyo inuu ugu tagi doono Generaal Cabbaasna asigana indhihiisa buu xayab طبعا وما باهنا تلمامو أيضا وحي جوكتا ميلاد محوها يشيغي رنتي كراعي كرتو وعربا قودهان إنا نمهد عليو إنا الله لا ينتي شقوين كمهيم كأها تلس كعيدك حوق طرف الصومالي آد كمهيم كأوها هدين نقولها ين تليس سيدا قيبها هدين نقولها ين هقامة تلس كقود هدين نقولها ين قودهان تلياشا دوكسيادة يو كليادها هدين نقولها ين صرهياشا كالي هل كان فردي يكوه مقامبا عيدك حوق طرف الصوماليات رنتي هوشا aadka iyo aadka muhiimka u ah ay mar walba ay muxuu ahaa ii sheegay hayaan una hayaan bulshada Soomaaliyeed halkan uma baahna hadal badan inaan ka dhahno uma baahna waqti dheer inaan ku bixino runtii waa kaliya inaan mas'uuliyadaha kala wareegno waxaan hor yaalna aan qabano marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ilaahay idin fududeeyo mas'uuliyaddeeda hortaalla ilaahay idankiis waxaan uga bixi doonaa si wada jira runtii waa hawl u baahan in gacmaha la isqabsado waa hawl u baahan in qof walba qofka kale garab istaago waa hawl u baahan runtii mas'uuliyad adag in la iska saaro marka waxaan leeyahay ilaahay idin fududeeyo